waayaha cusub oo aad ka tirsaneed waxa u sababa والله aad baan ku salaamaya wax oo sababa anigu ma garan karo anigu waxaan kaliya mana rabo inaan runtii heesta aan ka hadlo waxa sababa iyo waxa soo idil laakiin in qoraalka waxaan soo qorno waxay ahayd ani keligay ma ahayn qayb ka mid ah waaya cusub oo aan arrintan waxba ka ogeyn ayaanu shir degdeg isugu nimidnay waxaanu ka hadalnay waxyaabaha sababay kulley annagu shakhsi ahaan si gooni aan uga wada hadalnay laakiin waxaanu isla afgaranay inaanu sida annaga xagganaga shakhsiyan go-aankanaga inaan kasoo saarno marka wax sabab aanu ma garan karo runtii caqliyanna wax quman oo sababi kara oo in macnaha annaga sharciga noo yaalay wax ka baxsan inay ahayd baan qiyaasaya oon garan karaa saas darteed baanan qoraalka usoo qornay inay sharciga waayaa cusub u deganaa oo ah waayaa cusub sababihii loo aasaasay sababo ka baxsan in heestaa loo isticmaalo hagaag kadib marka aad eegtay xaaladda iyo weliba sida aad sheegtay heestaan iyo ujeedka markaasi muuqanaysa ee laga leeyahay go-aanka aad qaadatay ku aadan in aad ka baxday waayaha cusub ma yahay go-aan kama dambeysa mise keliya waxaan dhihi karnaa fanaanka xoogaa yar xanaaq keliya ayaa ka keenaya maadaama uu ka carooday kooxdii uu ka tirsanaya uu soo as-aasay tallaabada ay qaadeen kooxda horta in muddo ah oo dhowr iyo 10 sano ah ayaa wada shaqeyn naga soo dhaxaysay waxaan ka mid ahaa aasaasyaashii koowaad ee waayaha cusub maxaan ku raadayay waayaha cusub waxyaabihii loo aasaasay waxaa ka mid ahayd waqti lagu jiray marxalado aad u adag ayaan waayaha cusub aasaasnay oo wadanku aad u meel walba dab ku holcayay inaanu dhalinyarada Soomaaliyeed qoriga wadata inaanu ka wacyigelin inay qoriga dhigaan sabab kale oo waayaha cusub loo aasaasay meeshan shuruucaan qoranay sharciyaan qoranay inaanan shakhsi ku ataagareynin fankanaga fanku sidiisaba waa hanuuniye ma ahan hagardaamo marka sida la asligeed waayaha cusub markaan arkay aanu arkay hadda xaaladda lagu sugan yahay sida ay u dhaqmayaan waxa isugu kan dambeysay 2 sano ka hor halkan ay la joogeen waayaha cusub Mareykanka ay ugu yimideen waqti fiican ku wada qaadanay go-aankanagii saas ahaa iyo magacaan waayaha cusub oo aasaasnay in runtii la xumeeyo oo si xun loo isticmaalo aad bay nolol fool xumaatay annagoo badan waliba keligii shakhsiyan kuma hadlayo annagoo fara badan marka go-aan waxaan qaadanay intii maxaan ku raadayay magac annaga shakhsiyadeed oo faneed uu si ijaafoobi lahaa inaan waayaha cusub bannaanka istaagno hagaag weli waxaad naga dhegaysanaysaan ama naga daawanaysaan barta youtube-ka ee Kabaray Films dalmar yare ee su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay ila wareeda durbaba soo baxaya ama saaxiibo kugu dhow laga soo xignay waxa ay sheegayaan in aad damacsan tahay maadaama aad ka baxday waayaha cusub in koox cusub oo sida waayaha cusub oo kale aad asaasto isla markaana aad ka bilaabayso dalkaas Mareykanka maxaa ka jira taas waxa kama jiraan koox waanu nahay wada halkan North American Superstars baan la yiraahdaa Mareykanka fanaaniinta joogo aad baan isugu wada xiranahay saasaan koox ku nahay laakiin koox waayaha cusub u dhiganta iyo wanaagii aan soo qabanay ma u maleynayo in la sameyn doono xataa laakiin kulay magacii iyo sharaftii aan soo sameynay iyo wanaagii faraha badnaa oo bulshada soo sameynay waqtigii adkaa oo bulshada aan la soo wadaagnay wallahi ma u maleynayo koox u dhiganta in la sameyn karo ugu dambeyntii dalmar yare maxaad ugu baaqaysaa saaxiibadaadii hore ee waayaha cusub marka la eego dhanka fanka والله waxaan ugu baaqayaa oonan already qoraalkanaga ku sheegnay war-saxaafadeedkanaga aanu ku sheegnay in aanu aad uga xunnahay waxa ay sameeyeen maxaan ku raadayay raalina aanan ka ahayn bulshada Soomaaliyeedna waan ku raaligelinaynaa magacii ay aad u taageersanaayeen iyo taageerayaasheenadiiba in ay arkaan magacii runtii aad loogu dhiiqaystay oo aad loogu galgalashay aad baan uga xunnahay waxaan dhihi lahaa in laga waantoobo annagu markaan aanu ka hadlayno waayaha cusub waxaan hadda difaacayna ma ahan waxa ay sameeyeen waxaan difaacaynaa magac annaga waxa ay sameeyeen dowlad anagu dowlad ma difaacayno shakhsina ma difaacayno waxaan difaacaynaa magac annaga waayaha cusub in loo isticmaalo in qof kaleeto lagu ijaa'ifeeyo totally taasaan kasoo horjeednaa
macnaheedu ma aha inaanu dowladda taageersanahay, macnaheedu ma aha inaanu dowladda kasoo horjeedno, macnaheedu ma ahan inaanu ka xunnahay qaabka heesta loo qaaday. waxaan ka xunnahay in magacii waayaha cusub loo isticmaalo in fankii maxaan ku idhahday iyo fankii soomaaliyeed oo dhan lagu yaqaanay in si dadban wax loo kormaro, in dad lagu aflagaadeeyo. totally taasaan anagu ka xunnahay. wabilaahi towfiiqaad baan ku salaamay walaalkay. aad iyo aad u mahadsan tahay. dalmar yare ayuu ahaa kaa oo ku sugan waddanka Maraykanka islamarkaana u warramayey shabakadda YouTube-ka ah ee Kabaray Films. waxaana ka wareysanaynay tallaabo uu qaaday oo ku aadan inuu isaga baxay waayaha cusub kadib markii kooxdaasi sida uu sheegay ay u janjeersadeen dhinac kale islamarkaana fankii ujeedkii laga lahaa waayaha cusub oo Soomaalinimo ahayd ay ka wacdeen. dalmaryar aad ayaad u mahadsanta waqtiga qaali waan kaaga mahad celinaynaa. waa hagaag daawadayaal idinkuna waad mahadsan tihiin. waa fantastic fi amaanillah.